الله الرحمن الرحيم maanta oo ay bisha November tahay 24 sanadka 2021 waxaa noo suurta gashay inaan garoonka ka sagootino dhaawaca agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame oo ku dhaawacmay weerar ay ku soo qaadeen nabadiidku 20kii bisha isaga iyo Allah u naxariistay agaasimihii idaacadda Cabdicasiis Maxamuud Buuleed waxaan halkan uga mahad celinaynaa Ilaah baa mahad leh ra'iisul wasaaraha xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada khaasatan xildhibaan Saamir iyo xildhibaan Maxamed Salaad oo dhiigooda shubay oo aan maalin laga dhaqaaqin oo nala joogay oo haddana sagootintiisa oo diyaaradda guuxeesa aad maqlaysaan aan maalin laga dhaqaaqin ayaan u mahad celinaynaa mahadda koobaadna Ilaah baa leh mahadda labaadna ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo noo suurtageliyay imaanshaha diyaaraddan iyo inaannu agaasimaha Sharmaarke qaadno maanta noo suurtageliyey waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan madaxda wasaaradda warfaafinta wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha dhammaan shaqaalaha ehelada qaraabada isbitaallada Digfeer agaasimihiisa iyo dhaqaatiirtiisa isbitaalka Madiina agaasimihiisa iyo dhammaan shaqaalihiisa iyo dhaqaatiirtiisa oo iskaaga garab taagay ilaa maalintii dhaawucu dhacay ilaa iyo maanta aan qaadayno ilaahay waxaan uga baryaynaa Sharmaarke Maxamed Warsame oo loo qaadayo Turkiga in ilaahay isagoo nabad qaba oo caafimaad qaba oo lugihiisa ku soconayo aan cidna wada noo soo nabad celiyo cid alle cid ka qayb qaadatay badbaadintiisa ilaalintiisa iyo diristiisana wasaaradda warfaafinta waxaan u soo jeedinaynaa mahad ballaaran waana mahadsantihiin